maxaa dhacay maanta wixii dhacay ayaa rabaa inaan idinla wadaago bulshada Soomaaliyeed maanta waxaa la keenay maxkamadda federaalka ah Bakam Mardasa oo orama ah waa nin Bakam Mardasa kan waa balogaraynaya stupidka xunka mid kale soo qaado caliyo ku dhaaf waa Bakam Mardasa oo orama ah Hana Margan oo orama ah Xadiis Axmed oo Soomaali ah saddexdaas qof ayaa la soo taagay maanta maxkamadda saddexdoodba waxa ay qaateen dhiig haddaba sidee ayaa wax u dhacay shacabka Soomaaliyeed Hana waxay dhahday anigu cuntada la sheegaya bay dhahday wax yar ayaan ka bixiyay lacagta badankeedana guri Madana meel yira Madana oo xaafadaha cadaanku degaan ayaan ku iibsaday 1.2 billion dollar ayuu gurigaasi ahaa waa xaafadaha cadaanku degaan cuntadana waxay tiri wax yar ayaan bixiyay waxay tiri awal xafiiska Amy waxaan bixin jiray laaluush laakiin markii aan laaluushkii joojiyay waxa la iga kasal gareeyay ay dhahday dhammaan qandaraaskii oo dhan okay waxay u badan tahay in lagu xukumo iyada 2 ilaa 4 sano lacagta ay qaadatay gabadhaani cadadkeedu wuxuu ahaa lacagta ay qaadatay Hana lacagta ay qaadatay ilaa 5 milyan oo dollar baad marka laga gooyo 1.2 milyan-ka inta soo hadhay Hana waxay bixinaysaa xabsiga markay ka soo baxdo shilin ayay u dhiibaysaa Bakam Mardasa waa Bakam waa ninkii Etoobiyaanka ahaa Bakam waxa uu sheegay inuu galti yahay xaakimka hortiisa wuxuu qirtay dambigiisii oo dhan wuxuuna ku marxaati furi doonaa wuxuu la shaqayn jiray oo dhan organization la yiraahdo okay youth akara organization la shaqayn jiray waxa maamul jiray laba wiil oo Soomaaliyeed isagu wuxuu sheegay haba yaraatee waxaan uu ka shaqaynayay oo dhan in haba yaraatee $1 oo raashina ayna bixinin labada wiil uu la shaqaynayay magacyadooda company-ga magacyadooda wuxuu ahaa magacyadooda waxa weeyaan ii sheeg waxaa la yiraahdaa magacyadooda waa laba wiil oo walaal ah Cabdullaahi Cali iyo Yuusuf Cali 3.3 milyan ayay qaateen ayay xadeen wuxuuna cadeeyay in aanay hal cunto ah bixinin kambaniguna uu fake ahaa one penny oo cunto amaanaan dhimin buu yiri 3.3 milyan dollarna waa qaateen waa labadaas wiil oo walaalaha ah wuxuu yiri kambanigaasi wuxuu ahaa kambani fake ah oo aan jirin wax cunto oo haba yaraatee aan bixinayna ma jirto kasi dara Hana iyada lacagtay qaadatay waxa weeyaan 5 milyan 169,405 dollar Xadiis baa inoo soo haray basar Xadiis akoonkiisa waxa loogu tagay 400,000 oo dollar oo cash lacagta uu qaatay Xadiis waxay ahayd lacagta uu qaatay Xadiis waxay gaaraysaa 1 milyan Xadiis waxa lagu xukumayaa 46 bilood ilaa iyo 57 bilood oo xabsiya marka laga jiro 400 ee kun ee dollar ee akoonkiisa lagu qabtay masar Xadiis waxa lacagta kale uu dhiibayaa bani Xadiis waxa uu sameeyay gabadhii la oran jiray Xadiis waxa uu ka shaqeynayay xafiis Amy dhexdiisa ayuu ka shaqeynayay gabadhii Amy la oran jiray waxay tiri markuu ku muddo Xadiis wuxuu yiri waxa meesha ka socday system la yiraahdo baa meesha ka socday buu yiri balay ambay ciyaar oo bixi macnaheedu waxa weeyaan in dadka
in dadka yani kontraadka qaadanaya ee kontraadka la siinayo ay marka hore dhiibayaan lacag markay lacag dhiibaanna ay kontraadkii la siinaya markaa xadiis wuxuu ugu yeeray arrintaas waxa uu yidhi waxa weeyaan pay and play ciyaar oo bixi waad iska garan kartaan soomaa ciyaar bixi oo ciyaar yani taasaa ka jirtay eemi waa ay dafirtay waxa ay tiri ninkani been buu iga sheegayaa mana ii shaqayn jirin taasina wax soconaya haba yaraatee maaha xadiis waxaa lagu xukumayaa 46 bilood ilaa iyo 57 bilood oo 5 sano ah shaqaaluna ahaa shaqaale ayuu ahaa taas aynu meesha aynu ku darno wuxuuna ka shaqaynaya meesha isagoo shaqaale ah ayaa xadiis intaas lagu xukumayaa maxay idinla tahay dadkii qaatay maxaana guriga ay iibsatay waa 1.2 milyan dollar guriga ay haana iibsatay waa gurigaas dowladduna waa la noqdeen gurigaas waa 1.2 milyan dollar weeyaan saaragta gurigaas iibsatay dowladduna waa la noqotay gurigaas marka laga jaro 5,169,054 senti laga gooyo marka guriga la iibiyo wixii ka soo hara waxay bixinaysaa waxay ku bixinaysaa markay jeelka soo dhamaysato xadiis axmed isagu waa wiilkaas wuxuu ka shaqaynayay xafiiska emi ayuu ka shaqaynayay xadiis sida hadda star tribune ku qoreen muusan yani baa la yiri lawyers wuxuu yiri muusan noqon snitch oo waxba ma sheegin laakiin xadiis waxa uu ka shaqaynayay wuxuu xiriir dhow la lahaa dhammaan dadka qandaraasyada haysta saydhka haysta ee Soomaaliyeed qof kasta oo qandaraas qaadanaya xadiis waxa uu baa dhexmari jirtay xadiis waxa lagu sameeyay office-ka emi ayuu ka shaqaynayay markii lagu danaystay waxa lagu riixay garab qabyaalad baa lagu tuuray qabyaaladii markii laga tuurana nin kale oo isaguna dhawaan soo gali doona leynka ayaa meeshii la keenay meeshii markii la keenayna meeshii hal reer baa isku ururiyay arrin kale oo ka weyn baa hadda soo socota oo dadka Soomaaliyeed aysan wali ka fakirin laba qof oo ka mid ah dadkii emi xafiiskeeda ka shaqaynayay ayaa waxa ay qaateen deal hoose labada qof midna magaciisa lama sheegin xarfo kaliya la soo sheegay arrintaas markaa waxa weeye falaadhi cirka loo ganay nin walba filo labadaas qof yay noqon doonaa kolley dadkii meesha ugu badnaa ee meesha ka ceeshayay ayaa noqonaya waxay hawsha markaa isku bedelaysaa in reerkii meesha ka ceeshayay ugu badnaa laftoodii ay falaara isku gamaan oo iyagii ay dib isku kala rogaan run ahaantii waxaa aad iyo aad xaakimku aad iyo aad ula yaabay ninka la shaqaynayay labada wiil ee Soomaaliya Bakam Mardasa yani Bakam Madrasa wuxuu sheegay kambanigi uu ka shaqaynay oo dhan total inuu bafeeg ahaa $1 oo cunto ah oo ciyaalka loogu talagalayna inaanay dhiibin Bakam isaga wuxuu ahaa sarifle Bakam sarifle ahaa sarifle waliba weyn ayuu ahaa waxa uu sameyn jiray lacagta dadka 10% ayuu qaadan jiray inta kalena wuxuu u soo celin jiray dadkii Bakam isaga waxa loogu tagay lacag cadadkeedu yahay waxa loogu tagay waxa laga helay account laga helay 340,080 senti oo dollar ayaa laga helay lacagtu qaatayna milyan waa ka badnay xadiisna sidoo kale Bakam markii lacagta laga qabtay waxa lagu xukumay in lacagta marka laga qaatay inta kalena markuu xabsiga dhameystay uu soo bixi doono Bakam sheekadiisa waa sheekada ugu cajiibka badnayd ugu cajaa'ibsanay labada wiil oo la shaqaysan jiray Abdul iyo Ali waxa weeyaan ii sheeg waxa weeyaan Abdul Ali iyo Yusuf Ali 3.3 milyan dollar bay qaateen kambanigooda ay ku shaqaynayeen haba yaraatee $1 oo cunto ah ma aysan dhiibin oo ma ina siinin caruurtii lagu soo qaadanaya kambanigaas oo dhan macnaheedu waxa weeyaan waraaqa la iska soo macmalay oo meel la soo dhigay waa waxyaalaha ugu badan
ee bulshada kuwa soo socdo damage-ku ku sii gaari doon waxa aad iyo aad loola yaabo caruur dhan oo America ku dhalatay xaqii lagugu dhiibay $3.3 million aad ku soo qaadatay in maanta nin shaqaalihii kamid ah isagu wuxuu ahaa sarif caalami oo ninkan bakaan wuxuu ahaa sarif leh 10% buu qaadan jiray qof kasta oo wax soo sarifo waxa markaa yaab leh wax aad loola yaabo ah $3.3 million labada wiil ee walaalaha ah oo ku cunay magac ciyaal Soomaaliyeed iyo ciyaal kale ajaanib ah in xitaa ayna sameeynin in $1 ay gaarsiiyaan caruurtii lacag ku qaateen wax ayaan dara hadhow ayaa dadka Soomaaliyeed waxay oranayaan dawladdu dad bay cunsuriyada iyo dad Soomaaliyeed ayaa la xiray sariflahan uu ahaa bakaan madrasa shuqulkan uu ku shaqaysanayay waa shuqulka dad badan oo Soomaaliyeed lagu soo qabqaban doono sariflayaashu waa waxyaalaha dad badan oo Soomaaliyeed ay gacanta ku soo galayaan oo lagu soo qabqaban doono yaani qofku wuxuu soo sarifaa 10% ayuu qaadanaya gameka markaa xadiis uu sheegay ee ah bay and play gameka ah macnaheedu waxa weeye ma doonaysa inaad xafiiskii eemi timaadid oo aad kontraad u siiyo marka hore waa inaad bay garaysaa hadda waa adigii warqad iyo waxba saxiixin foomkii kaliya bay garaynaysaa waa under table waa dhiibaysaa ka bacdina balay waa ciyaaraysaa oo wixii baa lagu siinayaa markaas soo daldalanaysaa macnaheedu wuxuu ahaa in qof kasta oo halka yimaada markuu ciyaaro la siiyo in another side cusub oo sayrkii hore aan ahayn qofkana loo furo si lacagtii u sii badato oo la yiraahdo bay and play arintaas eemi aad ugu xanaaqday waxayna tir xadiis meesheeda kama shaqeyn jirino uu ka shaqeyn jiray xadiis waana ninka ugu runta badan oo runta sheeg doona xadiis run ahaantii waxa uu kashifay waxyaalo aad iyo aad u badan sida mardaasa oo kale mardaasa isaga waxa uu sheegay oo dhan horta totally run bay ahayd lama hayo labadan wiil ee walaalaha ah ee ilma cali meel ay one bari ku bixiyeen $3.3 million waa qaateen okay hadda waxa rabaa dadka Soomaaliyeed caawa inaan u qeexo xadiis waxa uu ahaa shaqaale waxa uu qaadanaya paycheck wuxuuna hoos ka qaadanaya xoogaa lacaga isagii oo intaas qaatay 400 oo kun akoonkiisa laga helay milyan iyo something lagu leeyahay ayaa waxa la siiyay 5 sano oo waliba hadlay oo dheel qaatay haana iyadoo gurigii laga celiyay wixii ka shaqaysana laga qaaday ayaa haddana waxa la siiyay 2 sano ilaa 4 sano inta u dhaxaysa la siinaya madrasana intaas oo kale u qaadanaya maxay filayaan Soomaalidii 18 milyan iyo 10 milyan iyo 15 milyan qaatay ee soo taagan ee dhahaya galti manihi waxa ay filayaan ee soo socda ma ii sheegi kartaan shacabka Soomaaliyeed imisay mudan doonaan marka dadka aqliga la saaxiibka aan la hadalno imisa ayay mudan doonaan dadka noocaas dadka intaas oo lacag qaatay maxay mudan doonaan hadda waxay soo gaaray akhbaar ah in wiil kamid ah dadkaasi oo lacag badan loo haystay uu already baxay kana gudbay xadka markuu xaqiiqada dhabta ah ogaaday daraad waxa soo socda maanta waxa uu ka gudbay xadka waa una baxay haddaba dadka kale ee Soomaaliyeed maxay fili doonaan ee malaayiinka intay qaateen la soo taagan in yaani ay yihiin dad dulman oo been laga sheegay xadiis oo shaqaale ahaa run ahaantii aniga talaabada xadiis qaaday aad baan ugu raacay sababtoo xadiis bacdama waxaan la wada dhooqaysanayay oo waxaan la wada cunayay waxa ka dhacday xafiiska ee midhdiisa wax Soomaali ku kala dhinteen reer kaliya meesha iska qabsadeen waxay rabaan ay sameeyeen ciday rabaan tuuraan ciday rabaan kontraadka siiyaan ciday rabaan lacagta u diidaan waxay rabaan ay walaaqaan laakiin waxay maanta ogeyn in iyagu ay cadaab isku soo gurayeen laakiin dadkan kale wax u diidayeen ay u nasteexaynayeen maanta waxay calaacalkood u yahay reerahaas wuxuu calaacalkoodu yahay alla maxaan barigii lacagta u siin weyno barigii loola joogi waayo maxaanu barigii u galin weyn maxaanu barigii qandaraaska u siin weyn
Soomaaliya ugu dambayn arrinta anoo idiin soo koobaya maanta waxaa la yidhi waysha gowrac sacu ha ku quus qaateen xadiis oo shaqaale ahaa oo 400 kun loogu tagay 600 oo kunna la yidhi markaad xabsiga soo dhammaysatay 5 sano waliba xadiis waa nin aqoon-yahana wasaaradda caafimaadka u shaqayn jiray waa nin wax bartay run ahaantii tallaabadu qaaday xadiis waa mid uu naftiisa ku badbaadinayay run ahaantii waana ku raacsana waxaa la yidhi ragciil cadaab ka dooray yacni waxaan uu xadiis sameeyey dhiil inuu qaato raganimo sababtoo qofku waxaa la yidhi hadday fooli timaado baa la yidhi guda qarsi dhimay hadday fooli timaado guda qarsi dhimay xadiis يعني وحو أركي حقيقة أبقى هاي وأنه وحبرتي ودك مرايكا مدجوج أو أقويها أو وحيقان أو مصدر دغري هايستا مدرسة وصلوا كله مركا وحو فهم حديث إن وحني أي دوقنا وكجر دوقنا بعد ما أو كجرو أنا كسي كالكلنا برنا لا كلا برنا ده مستقبل كيس ده ما كفكر كور هم دك 10 مليون قاطي دك شنو 10 مليون قاطي دك 8 مليون قاطي إيه صوت تاجن كل هاي قلت ما دي القاعدة ماي إن هذا يجلس سوتاي دك كاس محي مدن دون حتى واحد جرا دك يقول لعكت قاتين أن بني لو تجد وأكون دودي أي زيرو يهين مالك جاي مكالة جرا بالحساب الشعب الصومالي هذا يسكون بصير حديث وهالمليون قاتي أي شخص رسير أو شقالة هاي مح أو فدرال ما هبيني مالي فدرال ما هبيني مالي اوكي محمد صلاده هدان ان هذا wax ka galin moolkeyga ana iska leh kuma soo jiidani kuma yeerin ba hadaa bix weydin ado edable oo akhlaaq intaan balow kugu dhajiya ku tuuraya mid kale aan soo qaadanaysa amaana ku yeeray soo gal maana ku yiri stupid ass ka bax meesha marka maxay mudan doonaan dadka noocaas ilaahay baan idinku dhaafay labadan wiil ee Soomaaliga ah ee wiilka Etoobiyaanka ah madrasa oo ku marxaati furay 3.3 milyan dollar bay ku qaateen magac ciyaar Soomaaliyeed iyagoo muslim ayaa wixii gaala u soo dhiibtay ay khiyaameeyeen oo community been ka sheegay oo community diintii bay qaribeen oo islaamnimadii bay qaribeen soomaalinimadii bay qaribeen bini'aadnimadii bay qaribeen hal ilmo oo yar oo lacagtaas raashinkaas la gaarsiiyey ma jirin waqtiga wadanka wuxuu ahaa xaalad adag inkastoo wadanku iska barwaaqaysnaa oo dawladda laftoodu ay khadaab badan leeyihiin oo lacag badan ay bixiyeen dadkana lacag badan iyo cunto ay siinayeen ma garanayna lacagtan waxa dawladdu asaas u sameeyeen ummadda Soomaaliyeed waa reerka kaliya ee laga helo intay wax dhacaan in la yiraahdo cimraan aadana waa soo cimraysanana waa reerka kaliya ee aad aragtay dambiile ama tuug loo duceynayo oo looran ilaahay oo gaalada ka soo furfur waa reerka kaliya iyagoo fal dambiyeed ku jira isduuba inta isduubaan iyagoo marxaatiga iskugu yeer ay yiraahdo halkan ay ka shidanta waxaas oo dhan waxa keenaya waa jaahilnimada شكري عاقل واحد هذا 15 مليون و 65 to 75 years وترى هذه وحبس هذه هذا دير مركا إله بان كل دار شيء الصومالية بل إله بان كل دار شيء ضد كان ويل يرى واحد عضي هذا كهر قرر ما بتنها هاي الشيء أيا هو يدي ساوي حيكتري انتك حيصي أودك يجيس markaas ku tir hooyo tigid weyn way u goys waxay tir hooyo halkan ayaa joogaysaa inaad ku aqliyeysatid ayaa rabaa intuu saaw eegay uu iga garhalaabtay intuu saaw eegay ayuu wuxuu ku yiri hooyo dadkan aad leedahay meeshan aad leedahay waad ku aqliyeysanaysaa fiiri dalkooda sida uu yahay logbod hadday aqli leeyihiin buu dhahay wadankooda meeshan may ku hagaajistaan buu dhahay haddii aqli leeyihiin wadankoodan may ku hagaajistaan wuxuu leeyahay hadaad wabiga hadaad dheema ka dhigtid wallahi halkan ma joogay waxaan taas ka wadaa yaani wiilkii wuxuu tusaale hooyadii ugu soo qaatay wuxuu arkay wadadii oo dukaan laga dhisanayo wadadii oo dhinacan lagu saxaroonayo wadadii oo qashinkii saa loo tuuray wadankana waa adeer xitaa qashin lama ogola inaad wadada ku tuurtay wuxuu tusaale hooyadii ugu soo qaatay markii dhibaatadii George Floyd ay ka dhacday magaaladeena meelihii la gubay cadaakii xaafadaha shisho deganaa intay soo baxeen oo xitaa ciyaalkoodii soo kaxeeyeen waa kuwii fronteerka ahaa ee dhulka xaaqay
lug buu yiraahdo dadkaas waxay sameynayeen iyo dadkani waxay sameynayaan wali yara aqal badan buu yani uu ka gar helay hooyadiis marka wuxuu aqal aday leeyihiin meeshoodana hagaajsan lahayd taa waxaan caaw ugu soo qaatay Soomaalidana aqli haday leeyihiin hadday aqli leeyihiin iyaga oo wax dhacay inta iska marxaati furaan iskuma duubeen iyagoo waliba ka soo dhacay nan barafad oo macnaheedu yahay no faa'iida millions of dollars iyadoo waqti adag lagu jiro intay soo dhacaan maysan isu soo duubeen ma yiraahdo iyagoo iskuma marxaati fureen dadka maanta xiran ama dambiyada lagu haysto badidooda social media-hooda ayaa ku marxaati furay marka Soomaaliya yani halkaas ay xaaladii maraysaa saddexda qof ayaa maanta qartay dambigoodii xukunkoodana uu dhacay waa la siiyay waa soo xaroonayaan guriyahooda ka soo tabaabashaysanayaan waraaqihii bay saxiixayaan meeshii la geyn lahaa federal prison-kii ka bacdina gaari baa lagu qaadayaa meeshoodii baa lagu xareynayaa markay soo dhammaystaanna ay soo dhammaystaanna baymantii balaankooda ayaa u bilaabmaya inkasta oo wadankan markaad xabsi federaal aad gashid falani aad qaadatid soo baxdid noloshu ay tahay mid aad iyo aad u adag maxaan marka u warwaray dadkii Soomaaliyeed ee iyagu 10 milyan iyo 12 milyan iyo 18 milyan cunay ee soo taagano maxaa filaysaan inta xadiis la siiyay waa maqlaysaan madrasa inta la siiyay waa maqlaysaan haana inta la siiyay waa maqlaysaan maxaad fili doontaa